nin Soomaaliyeed ee South Africa Johannesburg ka shaqaysanayay dukaan buu ku lahaa gabadh South African oo gaalad ah ayaa u shaqaynaysay dhaqankii muslimiinta iyo salaadoodii iyo hawlahoodii iyo bay u bogtay dhowr goor bay ku tiri war inaan islaamaan rabaa ee tawxiidka see islaamka lagu soo galaa diinta islaamka inaan galaan rabaa ee caawi qaabkee lagu soo galaa seen yeelaa nadoofari ay shaqaysoon buu dhihi jiray islaamkaada ma aqaanee shaqaysaan ku idhi way ku soo celisaa na shaqadaada qabso way iska xishootaa maalmo kadib haddana soo celisaa canaan buu dhagaha ka raaciya war islaamka inaan galaan rabaa say u lahayd ee islaamka ii geli ama meel kale ii gee ama adugu ii qabo ee asna u wareejin haya u canaanan hayay baytii alla ku timid gabadha way dhimatay sidaasay ku dhimatay aqisa aad iyo aad u xanuun badan gabadha markay geeriyootay ninkii Soomaaliyeed war baa galay indhaha markuu isgaliya seexdaba islaantoo socota u imanaysa hebelow inta aad nooshahay baa naari kaa xigtay ku tidhaahdaa inta aad nooshahay baa naari jahannama kaa xigta qalaf markay kaa tidhaahdo jahannamaad geli anuguna hadda waan cadaabana waa lee cadaabaa waxaa la ii yidhi intuu hebel ka soo dhimanayo ee booskaada lagu bedelahayaad naar ku jiraysaa maalinku asagu qalaf soo yidhaahdo booskaada naarta isagaa gelaya aduguna jannada lagu geynaya saasay habeen walba oo la timaadaa indhaha markuu isgalay riyaa ugu iman intaasay ku dhihi hurdu ka saahiday dhowr bilood markuu seexan waayey oo indhihiisu taagan yihiin oo xanuunkiisi xad dhaaf noqday oo wadaada loogu yeedhay oo quraan lagala samray oo geed walba la mariyo laga samray hadda waxa loo qaaday Soomaaliya Muqdisho jooga asagoo xanuunsan oo waali ahaan ah qisadaasi waa qisa aad u culus weey haddii nin la leeyahay intaad ka nooshay baa naari kaa xigta oo indhaha markuu isgaliyay baa islaantu u soo istaagi hadda waa hawl xanuun badan weey waali isagoon dhimanina noolayn buu hadda ahalkiisu hayaan